لا تشميت قرن سام وقحوتي بكليته قحوتية أيو كسيليته ومالي قيبسن أو شنا وأنا من سنة هاي أنا من سنة هاي شن تاسي مالين مالمها كمدا إن حدود كدحدو ذيالا وقاد مدونو أو أي وضمت مقن دونان أو أي مدوبي دونان سيدا dadku marka inta maqlaan hadalkayga waxay durba maskaxda ku soo dhacaya inay Soomaaliya durba maskaxdooda geynayaan xaggaasay ula kacayaan xaggaasay ka raadinayaan laakiin waxaan rabaa inaan halkan idin keeno oo aan idin dhaahdo ururka marka la sameeyay meeshii lagu sameeyay ee markii ugu horeeyay laga hirgeliyay waa magaaladeenan Jigjiga waana magaaladeenan Harar waana magaaladeenan Dhagaxbuur iyo Qabridaar bismillaahir rahmaanir rahiim walal ku soo dhawow kanaalka Socdaal Bulsho barnaamijkani haddii uu ku cajabiyay like share iyo subscribe-ka waa xaqiina fikirkaagana waa inoo muhiim ee inoogu reeb commentiga si aad inoo dhiirigelisid waxaynu ahayn ummad Soomaaliya oo isir Soomaali wadaagta oo dhul Soomaali leedahay degan oo aan xuduud kala lahayn oo aan dawlad kala lahayn oo boqorro gaar ah kala maamulin oo isku wada furan oo midba meeshu doono u dago oo magac beeleed jaar wadaag ku ah oo xidid iyo xigaal hanti iyo xoolo socod iyo marti intaba wadaagta inaga oo sidaa u nool ayaa laynoo yimid cid inoo timid inagoon garanayn ayaa haddana kor laynagaga degay waxaynu noqonnay dad kala duwan oo xuduuda kala leh oo dawladda kala maamulaan oo magacyo loo kala bixiyo aakhirataankiina ilaa 5 meelood oo geeska ka Afrika degan hada waa dadkeenii sufuraa waa dadkeenii wada noolaa waa dadkeenii wada joogay dadkeena marka la kala guray ee la kala dajiyay ee ood wadaagay isir wadaag ahaa ee la kala guuriyay aakhirataanki waxay noqotay inay dhalinyaro taas aan uga socdaay ay yiraahdaan sidan aynu ku noolahay waa maxaa sidan inoo galay waxaynaan dafiraynin in ururkii SYL la oran jiray ee markii hore SYC la oran jiray waayo waa loo diiday inay urur siyaasadeed samaystaan waa loo diiday inay xisbi furtaan waa loo diiday inay sabaabulaan marka waxa loo ogolaaday naadi inay furtaan naadigana markii hore waxa la oran jiray SYC Somali Youth Council ayaa la oran jiray markii dambana SYL baa loo bixiyay oo league baa meesha soo gashay waxaan doonayaa dadku marka inta maqlaan hadalkayga waxay durba maskaxda ku soo dhacaya inay Soomaaliya durba maskaxdooda geynayaan xaggaasay ula kacayaan xaggaasay ka raadinayaan laakiin waxaan rabaa inaan halkan idin keeno oo aan idin dhaahdo ururka marka la sameeyay meeshii lagu sameeyay ee markii ugu horeeyay laga hirgeliyay waa magaaladeenan Jigjiga waana magaaladeenan Harar waana magaaladeenan Dhagaxbuur iyo Qabridaar marka marti kuma inaan ahayn magacaase inaga ay ahaayeen kuwa koo abtirsada waayo waxaad ku garanaysaan heesihii gobonimo doonka ee ururka SYL qaadayay ee dhalinyaradu qaadaysay ee lagu halgamayay waxa kamid ahaa saca faarsanacay sandulu ku iman 3 maalintuu qado saas waxa kamida safka haatan yiri Soomaali aan diidnoy maadaama ceelka lagu halqabsaday uu deegaankeena ku yaalo oo uu faarsa halkan ku taalo dhalinyarada heestaa samaysay ee ku halgamaysay waa dhalinyaradii deegaanka Soomaalida u dhalatay waa dadka isriya asal ka soo jeeda deegaanka Soomaalida dhalinyarada Soomaalidu halkaas ay ka soo bilaabeen halgan gobonimo doon bay sameeyeen way ku xoroobeen qaarkoodna wali maamuladii waaga hore ay kamid ahaayeen bay wali ku jiraan sidaas aynu maanta aynu u nahay geeska Afrika Soomaali qaybsan oo shana oo anigu aan aaminsanahay shantaasi maalin maalmaha kamida inay xuduudka dhexdooda yaala oo qaadmi doono oo ay wada mid noqon doonaan oo ay midoobi doonaan sidaas aan anigu aaminsanahay
dhibo ma arko maanta xaalad kala guur haddii aan ku jiro oo jamhuuriyadda Jabuuti gaar u taagan tahay oo Somaliland tidhaahda gaar baan u taaganahay oo xamar ay sideedii tahay oo maanta NFD ay taagan tahay deegaanka Soomaalidana maanta aan mid keenahay haddii aan isdhisno oo qolo waliba isdhisto oo wax qabsato oo horumar gaadho oo dhalinyarada wax barato oo dhalinyaradu garato qofka ay yihiin almuhim dhalinyaradu waa inay garato qofka ay yihiin haddaan garanno qofka aad tihiin dhalinyaroy markaa waxba inaga qaldami maayaane waxaynu noqon doonaa ummad jirta oo aayaheeda leh maxaa markaa dhalinyaroy maanta laydinka baahan yahay maanta waxa laydinka baahan yahay wacyigu maalinba meel buu joogaa garashadu meel bay joogtaa waagaan anigu yaraa ama intiina leekaa wacyigii waagaa joogay ma joogo waayo maanta idinku awood waxaad u leedihiin inaad wax barataan inaad diyaar garowdaan inaad horumar ka shaqaysaan arrimaha bulshada oo dhan baa kaalin idinka bannaanta arrimaha amniga oo dhan bay kaalin idinka bannaanta arrimaha horumarka iyo dhaqaalaha oo dhan bay kaalin idinka bannaanta oo ka laga raba waayo haddaadan qorsheeyaha ahayn haddaadan abaabulaha ahayn haddaadan ka madaxda ahayn laakiin fuliyaha tahay kale inuu fuliyo la doonayaa tahay shalayto example yar baan siinaya oo nolosha dhalinyaradu say u kala duwan tahay taydii baan example yar idinka soo qaadaya markii aan wiilka yar ahaa anigoo magaaladii aan joogay Ingiriis iyo Ethiopia wada degan yihiin markii 1960 Ethiopia Ingiriiskii uu ka guuray Howden Reserve Area dhulkeennii oo caasimadiisu markaa awaara ahayd iskuulkii Ingiriisku ka furay halka oo ardaydiisa kamid ahaa markuu Ingiriiskii guuray labaan u qaybsanay ardaydii qaar Ingiriiskii ka daba tagay oo Hargeysa kaga daba tagay uu hadda ka sii guuri doono iyo qaar dhulkii ku haray oo dib u raadsaday inay waxbarasho aqoon helaan laakiin nasiib darro waayay waayo meena helin anigu saadaan kuwii ka daba tagay noqday laba example baan idin siinaya anigoo yaroo ilmo yaroo standard 2 markaan Hargeysa tagay waxa la geeyay meel Oodweyne la yiraahdo Oodweyne meel la yiraahdo maalintii la geeyay meel ay ku taalimaan garaneen aniga wiilashii la joogayba intayadii kale taytalkan wadanay laajibo ahaa soore يقرأ على هذا تيتل كان وثمانتي لا تشوفوها لا تشميت قرن سام وقحوتي بكليته قحوتية أيو كسيليته وسيلو جنشري مركان أوارا كتاو وسيلو جنشري وحن كعرري شري أنا بابور حبشي هذا قبطان إذن كان ما أنت إسوغو قلاسكي إذن كحيو وشام عادي إذن كحيكتو أياديين لادهين واتاقي لادهين سوقا تاغنتهين waxaan la ooyayaa maaha waxaad aan dareemayo laakiin waxa la ooyayaa la soo xusuustay anoo yaroo cararaya oo ka dhuumanaya baabuur yaroo dayacan la odhan jiray oo nalagu soo qabqaban jiray oo kabala'aana oo doonaya keliya inuu iskuul dhigto baan doonayay intaan ka tegay Oodweyne baan xamar tegay bal qiyaasa
ninka intuu ka yimaado xamar 2 usbuuc soo socda ee Hargeysa yimaada ee Hargeysa ka soo baxa ina guuxa yimaada ee ka lugeeya ee reer miyi taga muddada bay ku qaadanaysaa ee haddana jidka dib u mara ee intuu fasaxa halka ka noqdo xamar dib u taga si iskuul u dhigto hadda waxaan la eeloonayaa hadda waxaan la eeloonayaa markaan arko albaabka aqalkaaga iskuulkiiyo ku yaal markaan arko jaamacaddii oo ku taal oo aad waxba baran laadihiin aad wax baran laadihiin baan leeyahay war iyo waxagay u socdaan weligay anoo hadli ma ooyin noloshaydan hadal baan ku soo qaatay shaqooyinkan aan bartay baa waxaa ka mid ah in la hadlo ma qiyaasi kartaan waxaana dadtaa uga socdaa waxbarashada aynu maanta baran laanahay dhallinyaroy meel laga keenay ma ogidin bal hoolkan eegaad fadhidaan quruxdiisa idinkuna saad u soo fadhidaan eega waa qurux kale lagu daray ma ka faa'iidaysataan kama faa'iidaysataan maxaad saa u leedihiin waydaan garanayn waayaha wakhtiga iyo nolosha ayaad meel cusub ka bilowdeen sidaasaan u leeyahay way ka kala duwan tahay aan mawduucayga kor uga koro dhallinyaradu waa xoogga ugu abaabulan dalkan aynu leenahay iyo qarankan aynu leenahay ee maanta aynu haysanno waddo dheer baa loo soo maray dalkaa doonta joog ama jamhuuriyadda jabuuti ka imo ama hargeysa ka imo ama xamar ka imo ama gaarisa ka imo meeshaa doonta ka imo mid walba jid dheer baa loo soo maray jidkaa dheer ee loo soo maray maanta waa idinku ammaano waa laydiin dhiibee waa idinku ammaano muxuu ammaano idinku yahay inaad wax u qabataan inaad hore u marisaan dalkiinna iyo dadkiinnaba inaad wax u qabataan wuu kala xuduudaysan yahay wuuse isku furan yahay waa la isugu gudbi karaa waana la isaga tegi karaa waxna waad ka qaban kartaan dalkan qaar xurriyadda haystaan qaarna maamulada haystaan ee Soomaaliyeed ee 30 milyan ah dhammaantiin waa idin marti waxaan hadda saa u leeyahay noloshaasaa idin odhanaysa waxaan mararka qaarkood isciilka ambiyaa markaan arko heerka nolosha maanta laga gaadhay isbeddelka inoo yaalla waxaan higsanayno iyo sidaad u habacsan tihiin habac idin saaraya markaasaa waxaan isidhaa tolow kuwii shalay dhulkan u soo halgamay dadkii taariikhda Soomaaliyeed sameeyey haddaan idhaahno maxamuud xarbi haddaan ka soo qaadanno dhinaca Jabuuti buu u soo halgamay faarax Omar iyo Sheekh Bashiir haddaynu soo hadal qaadanno Cabdilaahi Ciise iyo Sheekh Xasan Barsame haddaynu soo hadal qaadanno deeqo macallin Sambuli haddaynu soo hadal qaadanno NFD deegaankeenna haddaynu nimaadno oynu Sayid Maxamed Cabdilla Xasan iyo Maqtal Daahir iyo Garaad Wiilwaal iyo Bar Cabdalle iyo aynu kulligood soo garab dhigno ugaas Xasan iyo aynu soo hadal qaadno haddii hadda Allah u naxariisto dhammaanteede ay maanta ogaan lahaayeen inagoo awood walba haysana inaynu sidaynu doonayno wax u qabsan laanahay way isciilkaan bii lahaayeen heestii ma gobolamin darwiishkii